دونت تاريخ الورى بدمائي وحميت أرضي وافتديت سمائي دونت تاريخ الورى بدمائي وحميت أرضي وافتديت سمائي ما زلت أحتضن السلاح بقبضتي أفلا ستغمض أعين الجبناء أفلا ستغمض أعين الجبناء يا أمة الإسلام دين محمد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. وبعد waxaan maanta ka warrami doonnaa haddii alla yidhaahdo beyj ama safxa ama qayb ka mid ah taariikhda muslimiinta beyjajka uguba madow. marka taariikhda muslimka oo dhan laga warramo beyjajka ugu adag ee runtii qof muslimi inuu ka warramo ay dhibayso beyj ka midaan ka warrami doonaa. beyjka warka aan ka sheegayo maaha litasliya iyo inaan ku madadaalano dad muslimiin oo la laayay ama la baabi'iyey ama magaalooyin muslimiin oo la dumiyey taariikhdood, laakiin danta aan ka leenay waxa weeyaan lilcibra, inaan isweydiinno maxaa halaagga intan leeg keenay, maxaa dhibta intan leeg muslimiinta ku sababay. waayo fi taariikhi اlislaam waa markii koowaad ee caasimaddii muslimiinta ee khilaafa alislaamiya ka telinaysay min mashriqi ilaa maqribi ay hoos imanaysay, waa markii koowaad ee taariikhda la qabsado. waxaynu geli doonnaa markaa daris sheegistiisu ay naxdin badantay, ka warrankiisuna uu adag yahay, laakiin aan isku dayayo bal inaan soo guud maro intii aan guud mari karo. waxaynu joognay dowladdii tataarka oo uu qabsaday ninuu awoowiyey jinkis khan oo inankiisii ugu yaraa uu dhalay ee tuuli oo la yidhaahdo manko khan. waxaynu soo sheegnay dowladdaa uu qabsaday ninka la yidhaahdo manko khan oo nin hooyadii masiixiya ay tahay, 3 nin oo ay walaalayiin inuu kaalmaystay oo mid uu caasimadoodii ku reebay karakrum ama qaraqrum lo odhan jiray, midna uu eeshiyada fog u dhiibtay siiba china iyo wixii ka agdhodhow iyo kuuriya qabilay nin la yidhaahdo. walaalkiisii ugu yaraana waxaa loo xil saaray oo nin dagaalyahana ahaa caasimadda muslimiinta ama dowladdii dunida ugu xoogga badnayd ama ugu weyneyd ee waagaa jirtay siduu dhulka u dhigi lahaa. ninkaasi waxaa la yidhaahdaa luqada af ingiriisiga halaagu ayay ku sheegaan, taarikhyahanada muslimiintuna hoolaako bay qoraan. halaagu ama hoolaako kaad tidhaahdaba waa 3 ninee walaalaha ninkii ugu yaraa. waa nin runtii ka telinayay markaa dowla alkhawarzimiya dhulkii ay ka telin jirtay siiba bershiya ama dhulkii eeraan la yidhaahdo iyo waxa ku ag wareegsan. weliba xaaskiisuna waa amiirad ama khaatuun, waataynu nidhi khaankana raggaa la yidhaha khaatuunkana dumarkaa la yidhaha. waa amiirad takas khaatuun la yidhaahdo oo iyana masiixiyada. markaa boqorku hooyadiibaa masiixiyada, ninka kanna xaaskiisa ayaa masiixiya. waxaad dareemaysaa markaa masiixiyadda inay xoog badan ku yeelatay dowladdii tataarka iyo dhankeeda. ninka kani siduu khilaafada islaamiga u dumiyo isagoo ah nin qalbi adag oo aan naxariis aqoon, haddana wuxuu ahaa nin deggan oo tallaabadiisa aada uga fiirsada oo wuxuu u baahnaayoo dhan isku dayay inuu muddo sameeyo. weerarun aan iska qaadin, laakiin tijaabiyey inuu tamhiid hordhac tiro badan le arrintaa u sameeyo. hordhacaasi wuxuu ku qaatay muddo 5 sannadood uu ka shaqaynayay. 649 ayaa la soo diray ilaa 600
iyo 54 hijriyada shantaas sannadood wuxuu waday diyaar garow isagoo beershiya jooga oo ciraaq aanay waxba u jirin ayuu haddana diyaar garow waday waxay yidhahdaan nimanka taariikhda qoraa diyaar garow buu sameeyey 4 meelood ku saabsan kow wuxuu diyaar garow ka sameeyey bay yidhaahdeen infrastructure-ka ama albinya taxtiya oo ah logisticska waxaana yidhaahdaan sidii uu u heli lahaa ciidamada shidaalka wixii uu u baahan yahay oo dhan waddadii ay u soo mari lahaayeen dabeetana wuxuu sameeyey waddooyin isku xidha min ciraaq ilaa China waddooyin waaweyn oo isku xidha ayuu samaystay waddooyinkaasi uu samaystay oo dhul buuralaya mara oo Tajikistan iyo Afghanistan iyo Faris iyo dhulkaasi oo dhan mara ayuu samaystay waddooyinka uu sameeyey webiyaa dhulkaa mara webiyadaasi wuxuu u samaystay bridge ama jisr dhul ciidamada iyo qalabka iyo wuxuu u baahan yahay oo dhami ay ka tallaabi karaan oo waaweyn buu ku sameeyey wuxuu kaloo u dhigay ciidamo ilaaliya waddadaasi iyo meelahaasi ay marayaan logisticskiisa oo dhami muwaasalaadkiisa yacni ciidanka taakulaymihiisa oo dhami dhulka ay marayaan ciddii ilaalin lahayd buu sameeyey wuxuu samaystay bay yidhaahdaan qalab wax lagu xambaaro oo xayawaan ay jiidaan oo waaweyn oo uu ku soo raray xusuunta ama qalcadaha dhufaysyadan waaweyna la galo ee dhagaxa ka samaysan ee adag qalab Chinesku ay samayn jireen iyo dhulkaasiyo lagu garaaco oo markaasi lagu dumiyo ayuu soo xambaaray oo soo qaaday oo China ka keenay ilaa iyo Baghdad duleedadeeda uu keenayay wuxuu sameeyey dhulka waddooyinkii uu samaystay inta u dhow ee agagaarkeeda wuxuu ka ilaaliyey xoolo dhaqdaan iyo xoolo duurjooga midnaba inuu daaqo wuxuu ku talagalay fardahoodu inaanay u baahanin in calaf loo qaado markaa seeruu u sameeyey fardahan militarigu wato dee raashin bay u baahan yihiin si aan raashinkooda ugu cuslaanin waddooyinka isku xidha min China ilaa Baghdad ee ciidamadiisu ay marayaan agagaarkeeda seeruu ka dhigay seeruhu waa dhulkan laga ilaaliyo xoolaha iyo wuxuuba inay galaan ee la ilaaliyo dhul lama degaanu ka samaystay oo ugu talagalay inaanay calaf waxay cunaan u baahan fardaha ciidamadiisu wataan waxaynu odhan karnaa wixii uu u baahnaa ee isku xidhka caasimadiisa iyo meeshuu ka yimi iyo dhulkuu degay wuu kaajiyey kaasi waa qaybta koowaad ee diyaar garowga qaybta labaad ee diyaar garowga ninkani uu bilaabay waxa weeyaan diyaar garow aan lagu aqoonin dawladdii tataarkii hore dawladda tataarkii hore waxaa lagu yaqaanay inay dawladnimadooda u ictiraafsay inay tahay sayidatul caalam hal qura inuu dunida nin quri ka taliyo wixii kaloo dhammina hoggaansi inay la yimaadaan luqada diblomaasiyadana may aqoonin waayo niman reer baadiyaa baa ahayd reer miyigu inta badan afkan nifaaq ee la isku soo dhadhaweeyo shaqadooda kuma jirto waa luqo waadixa ama la istilo ama la kala nabad galo laakiin ninkani wuxuu bartay luqati diblomaasiya iyo taxaalufaad siyaasiya gaashaanbuur inuu sameeyo isagoo dawladdii u xoog badnayda ayuu gaashaanbuur sameeyey gaashaanbuurta uu sameeyey waxaa la waday xaaqaankiisii weynaa ee Manko Khan waayo Manko Khan bay yidhahdaan markii koowaad 651 buu wuxuu aqbalay safaara diblomaasiyiin ka socda reer galbeedku inay tegi karaan qoran oo wada xaajood lala sameeyo diblomaasiyiintan waxaa soo diray Louis XVI oo dagaalkii koowaad ku jabay intaan la qabanin boqorkii Faransiiska oo ah Louis kii sagaalaad la odhan jiray 648 markuu jabay mar labaad muxaawalo uu wado 3 sano kadib ayuu u dirtay safaarad uu la hadlayo weli nimanka tataarka muslimka inay wada weerari karaan safaaradda tan waxaa hogaaminayay raahib caan ah oo taariikhyahanada wax qora ka mid ah waliba nimanka tataarka wax ka qoray ka mid ah oo la yidhaaha William Robrick oo Dominikia ayaa loo diray inuu noqdo safaarad iyaga iyo nimankan dhexdhexaadisa laakiin maadaama weli caqliyadii ahayd alqutb alwaxiid
nin quri you will be either with us or with the others caqliyadda abay haysteen caqliyaddii maadaama uu rumaysnaa Manco Khan muu aqbalin qaabkii ay ula hadleen safiiradan u yimi waayo isagu wuxuu u yaqaano quri sidiiqu waa cidda taabica u ah saaxiib waxay yihiin ciddii dawladdiisa soo gashay raacda haddaad dawladda soo geli weydo cadowgaad ka mid tahay saasoo quri u yaqaano laakiin boqorradii reer galbeedna ee soo hadhay tabicinnimada may aqbalin inay raacaanta waa diideen laakiin waxaa jira boqorro yaryar oo kristan oo tiro badan leh maadaama kuwii waaweynaaye yurubta galbeed ay diideen boqorro yaryar ayaa jiray maalan boqorkii haythamkii koowaad la odhan jiray haythamka koowaad waa boqorkii armeniya ka talinayey cagihiisaabuu ku safray ilaa iyo uu tegey qaraqorum mongolia caasimaddii tataarka ilaa uu tegey isagoo markaasi raba inuu heshiis la galo maadaama boqorkan isagoo lugaynayaba uu yimi si weyn buu u soo dhoweeyey Manco Khan waxaa loo sameeyey soo dhoweyn weyn isna wuxuu aqbalay bunuudi tabaciya inuu dawladdan u hoggaansamo uu raacayo ayuu aqbalay oo uu ka mid yahay racaaya ama dadka dawladda taageersan ee raacsiisan inuu ka mid yahay haythamka koowaad wuxuu Manco Khan u oggolaaday kow boqorka iyo wuxuu hantileeya gaarka ah inuu nabadgelinayo wuxuu kaloo soo oggolaaday kanaa'ista iyo adiiraadku yacni meelaha ay ku caabudaan diintooda masiixiyiintu inaan wax daraa'iba taxation inaan laga qaadin ee tagaska free ay ka noqdaan wuxuu kaloo soo oggolaaday wixii dhul ahaa ama magaalooyin ahaa ay ka qaadeen salaajiqadu waa muslimiintii turkiga ahayd ay isdili jireen wixii dhul ay ka qabsadeenna in loo celiyo oo iyaga dib loogu soo wado waxa qudhee buu u oggolaadee boosina waxa weeyaan la taliyaashaydana ka mid baad noqonaysaa buu leeyahay arrimaha gobollada markaan wax rabo inaan ka qabto dadka aan kala tashan doonana ka mid baa tahay buu yidhi fii shu'uuni garbi aasiya fii muqaabili maada intaa marka loo oggolaaday maxaa isagana laga rabaa waxaa laga rabaa armeniyiintu in badan bay muslimiinta isdilayeen khibrad fiican bay u leeyihiin dhulka kan deegaankan muslimka dhaqamadooda waxaan oo dhan inay ka bixiyaan sida duwalkan waaweyn maraykanku markuu duulayay ingiriisku aan naf badan lahayn buu hoosta ku watay si laakiin khibrad buu leeyahay caalamulislaami waa expert buu ku yahay khibraadkiisa looga faa'iidaysto waxa uu sameeyey dhulkiisa ciidamadiisu inay free u noqdaan baabilmucaamalaat dawladda tataarka iyo masiixiyiinta dhex maraya inuu oggolaado ay soo socdaan intaa kadib waxaa bilaabmay masiixiyiintii shaam deganaa iyo meelahaana inuu ninkani wada hadal la sameeyo oo la soo dhoweyn karo armeniya inay la taxalufto tataarku xoog weyn may ahayn laakiin waa caamil nafsi ah gaashaanbuur maraykanku markuu duulayo 30 dawladood oo yaryar buu ka haystaa baahi uma qabo militarily laakiin waxay ka mid tahay bihaylihi wa hayliyaamihi inaad dunidoo dhan baa ku soo weerartay marka lagu yidhaahdo hal dawlad baa ku weerartay macno kale fog bay samaynaysaa idan xilf iyo gaashaanbuur buu bilaabay inuu sameeyo maxaa ka mid ah dawladda armeniya ciidamadeeda meelo yaroo khatar ah oo ku tala galay inaan isaga dad badani kaga dhimanna waa lagu buuxinayaa askar inuu keeno wuxuu bilaabay markaasi boqorro yaryaroo tiro badan oo muslimiin inay dawladda weyniyana inay xidhiidh la wada sameeyaan ilaa cabsaas soo korodhay oo iyana la yidhaahdo waa dawlad sidiiqa ama xilfi wadaag ama xilfi istraatiiji aan wada leenahay waxba ku kordhin maayo imise dawladooda yaryar baa maraykanka la leh xilfi istraatiiji iyo xilfi kada waxba kuma kordhinayaan laakiin waa nooc min atabiciya inay aqbalaan diblomaasiyaddaasaa bilaabantay qoladaa yarna masaakiintaana fakhaamatu ra'iiskiisaasi inuu qaato iyo boqor hebel Manco Khan wuxuu kaloo bilaabay masiixiyiintii caalamulislaami ku dhex noolaa inuu xidhiidh la samayn karo ilaa xad uu xidhiidh la sameeyey bay taarikhyahanadu yidhaahdaan makika
batriiqii la odhan jiray oo baqdaad kiristanka jooga batriiqay lahaayeen makika baa la odhan jiray makika wuxuu ku xidhmay oo uu xidhiidh la sameeyey baa la yidhahaa boqortooyadii manco khan uu waday manco khan uu sii ballaadhiyey georgiya boqortooyadeeda iyana xidhiidh buu la sameeyey waxaa sii ballaadhay xidhiidhkaasi dabeetana waxaa bilaabmayba kuwa yaryaroo muslimiin oo aada u tiro badani inay usoo kala dheereeyaan ilaa xad aynu odhan karno waxay gaadhay halkuu ilaahay qur-aanka ku lahaa fatara aladiina fii quluubihim marad yusaaricuuna fiihim yaquuluuna nakhsha an tusiibana daa'ira facasa allahu an yaأtiya biاlfatxi aw amri min cindi fayusbixuu calaa maa asaruu fii anfusihim naadimiin ilaahay wuxuu yidhi kuwa qalbiga ka buka waxaad arkaysaa iyagoo u kala dheeraynaya gaalada iyo la xidhiidhkooda oo leh mushkilad ummadda qabsan lahayd baanu ku badbaadinaynaa iyagoo shaqeynaya laakiin dantu ay tahay qulubtoodaa marad uu ku jiraabay ugu kala cararayaan waxaa bilaabmay boqorro yararoo badanoo muslimiinina inay ku xidhmaan dowladdii mongolianska maxaa ka mid ah badrudiin lu'lu waa boqorkii muusul meesha la yidhahdo ciraaq ka tirsan ninkii ka talinayey hoolaaku u tegey xidhiidh buu la sameeyey waxaa ka mid ah oo iyana yimi salaajiqada ama atraagta dadkii ahaa laba boqor oo isdilayay baa jiray mid waliba wuxuu is yidhi ka kale yuu kaa badinine dowladda weyn adigu xilfi wadaag la samee dabeetana labadiiba mid isagu waxaabuu ka qayb galay oo kiitaa markii la caleema saarayey dhowrkii kuna tegey buu ku jiray kii kalena waa ka daba tegey labaduba xidhiidh bay la sameeyeen midi waa ruknadiin waa qalaj arsalaan araabic dowla salaajiqadii arsalaan araabic waktigii dowladdii uu ka talin jiray weeyaan waa ruknadiin ninkii la baxay ka kalena kakaws ayaa la yidhaahdaa cizudiin ba uu la baxay cizudiin kakaws baa la yidhaahaa labadaa boqor ee salaajiqadayhina iyana way tageen xilfi wadaag bay la soo sameeyeen labada nin waxay ka taliyaan markaa waqooyiga ciraaq iyo turkiga intaas bay ka taliyaan iyana xilfi wadaag bay la soo sameeyeen arrintu intaasoo qura kuma sinna dowladda weyn waa laga wada cabsanayaa annaasir yuusuf waa suuriya xalab iyo dimashik boqorkii ka talinayey isna xagga dambuu ka soo wareegay dowladdii manco khan ee tataarka ayuu isna xilfi wadaag la soo yeeshay bale si uu ugu caddeeyo inuu mar kasta uu heegan yahay oo arrimaha kan aqbalayo inankiisii la yidhaahdo alcasiiz ciidan baaba la soo siiyo ciidamadu wato hoolaako hurin ka mida la yidhi hoggaami waa boqor muslima inankii ayaa wuxuu hoggaaminayaa ciidamada hoolaako hurin ka mida ayaa la yidhi hoggaami waxaa kaloo yimi suuriya xums alashraf ilayubi oo isna xumus jooga si uu dowladda tan xilfi wadaag ula samaysto nimankan meesha maraya aan tirinaya dambe waxay ku abtirsadaan salaaxaddiin ilayubi waa dhashii ama kuwa awowyada u ahaa salaaxaddiin ilayubi weeyaan qolada tan tataarka xaggiisa u soo cararaysa waxaa ka mid a dadka xilfi wadaagga waaweyn la samaynayey dee nimankii hoggaamiyaashaba ka ahaa provinceski muxaafadaadkii muslimiinta qaybo ka mida maalan turkistan iyo maa waraa'i nahar oo dhan nin mascuud yalvash la yidhaahdaa haystay ninkaasina ciidan buu soo ururiyey waa maamulo ka tirsan waa qoladii la socotay oo kale uun maraykanka markii uu ciraaq qabsanayey ee meelaha uu dhiidhiibtay waa maamule meeshaasi maamula oo uu dhiibteen tataarku isna ciidamo badan buu soo qoray oo muslimiinah oo jaanibka tataarka ka dagaalgelaya waxaa ka mid ah dadka uu xidhiidhka la soo sameeyeen basaasiintii iyo wixii ilaa xad baqdaad bay soo galeen ra-iisul wasaarihii khilaafada islaamiga baa xidhiidh lala sameeyey waa kuma waa mu'ayidiin alcalqami mu'ayidiin alcalqami ashiici waa meelaha bay yidhaahdaan boqorka kan meesha qabsaday siyaasad darradiisa uu gafka weyn kaga dhacay 42kiiba wuxuu saaray madaxnimo ra-iisul wasaarihiisii hore markuu dhintay ra-iisul wasaare shiiciyuu qaatay oo weliba mutatarif ah ayuu qaatay bay yidhaahdaan ninka kani oo shiiciga ah isla sanadka baqdaad la qabsan doono sanadkii ka horreeyey waa sanadkii ay dhacday fitnadii baan rajaynayaa baqdaad ka dhacday ee shiicada iyo muslimku islaynayeen dowla alcabaasiya sideedaba iyo calawiyiintuna col bay ahaayeen
oo intaasoo hawro oo calawiyiina bay 500 sannadood ay xukumayeen ay laayeen saa daraaddeed sidoodaba iskumay fiicnayn iyagoo isku qabiil oo isku jiliba oo cali ibn abi taalib iyo cabbaas ay ku kala abtirsanayaan reer binu cabdilmuطalib wuxuuba isku yihiin haddana dawlad ahaan iskumay fiicnayn markaa shiicadu aad bay uga cabanaysay dawladdan cabbaasiyiinta si kastaba ha noqotee ra-iisul wasaarihiina wuxuu xidhiidh hoose la yeeshay hooleko intaa waxa sii raaca oo hooleko waxaa la weydiinayaa inuu fudaydiyo ciidanka tataarku siday u soo geli doonaan meesha waxaana loo ballan qaaday boqorka marka la rido majliska ka talin doono guddiga loo dhiibi doono baqdaad ee ka talin doonta in madax looga dhigayo adigu booskaagaba waayi maysid baa la yidhi majlis alxukm majlis la yidhahday tataarku samaynayeen markii baqdaad ay rideen dabeetana majliskaasa adiga madax lagaaga dhigayaabaa ballankaasaa la siiyey khulaasadu waxa weeyaan ciidamadii tataarku intaanay dagaalka bilaabin waxay sameeyeen xilfi wadaag tiro badan oo ay ka soo samaysteen xukaamtii muslimiinta iyo kuwii kiristankaba ee agagaarka joogay oo markaasi akraad u badnaa iyo shiico dawla alcabbaasiya markii khawaarzimiyiinta la liqayay dee umay gargaarin bal ee tataarkay taagtaageeraysa iyaga marka la liqayo waa aljazaa'u min jinsi alcamal de maadaama adba kuwii hore aada lugta u qabatay adna cidinku difaaci mayse waxay noqotay adna qaar lugta ku qabto in lagugu itixaamo isba dawla alkhawaarzimiya iyo muslimiintii milyanka loo dilaya aan ka warramayay ama nishabuur ama marwa ama samarqand ama bukhaara markii la tirtirayay umay gargaarin taasi waxay sababtay dadku siduu u kala furfuraa in iyagana markooda dad tiro badani u ku soo baxaan boqorradii karamaan ka talinayey oo barq ninkii la odhan jiray oo ah khiyaatuddiin ayaa meesha madax uga dhigtay jalaaluddiin kii walaalkii weeyaan waa boqorkii khawaarzim ee moxamed ayaa dhalay labada walaalii markay isdilayeen mid baa meesha usii dhiibtay kii meesha usii dhiibtaa u yimi kii intuu ikhtiyaal ku sameeyo madaxa ka gooyey ayuu u geeyey madaxii khiyaatuddiin waxaa loo diray maxay qaraaqarun baa loo diray iyadoo loogu bishaaraynayay inan kale oo uu boqorkii khawaarzim uu dhalay inuu ka soo takhallusay isna meeshaa la yidhaah hayso way soo socotay qutbaddiin mid la yidhahdo meesha joogay iyo nin kale oo ku loolamayo abibakar loodhan jiray labadooduba ciidamo iyana usoo direen holaako ay leeyihiin waa kula xilfi wadaagta ay ku biirayaan marka aan soo duuduubo qodobka koowaad waxa weeyaan waddadii wuu hagaajistay iyo askartiisi iyo ciidamadu meesha mari lahaayeen qodobka labaadna waxa weeyaan gaashaanbuur ballaadhan bay samaysteen si khilaafa alcabbaasiya loogu duulo qodobka saddexaad waxay bilaabeen xarbi dacaayiya dunida waxaa la ysku haystaa dagaalka dacaayaddu dadka ciidamada wuu niyad jabiyaa dadka wuu dhibaa maraykanku dunida wuxuu u sheegay cirka waxaa ugu maqanaya sida xabadda liina dhulka taalla inay arkayaan hadda dad waaweyn ay daydayayaanna weli way arki la'yihin laakiin waxaa laynaga dhaadhaciyay teknolojiyadu xadkay gaadhay midhliina haddii dhulka waxay yidhaahdaan garankaad xidhantahay haddii sida kale loo rogo wuu akhriyi karaan waxa meesha kaga qoran waa dacaayaadku markaa dadka way jebiyaan sidoo kale tataarku waxay faafsadeen dacaayo aada u cajiibah dacaayadaasi caamadii iyo dadka qalbiyadooda way gelgeshay si dacaayaadkaasi ay u faafi karaan kow dadka badh malaa weylaadkii iyo balaayooyinkii u dhigay jenkis khan dee 30 sane hadda ka soo wareegay jenkis khan 617 bay ahayd markii uu weylaadka ugu waaweyn dhigayay iminkana waa dhowr iyo 50kii 30 sane ka soo wareegay dadkan cusubi malaa aada u garan maayaan jenkis khan sheeko ku yahay si wax loo xasuusiyo ciidamo yaryar bay direen oo wax laaya oo wax gumaada oo dadka baqageliya oo rucbiga dib u abuura waxay kaloo sameeyeen waqooyiga ciraaq oo dhan meelo ka mida duulimaadiyay ku qaadeen saruuj sanjaar meelahaasi oo dhan waxay dhaceen qaafilaad ay lahaayeen dawla alcabbaasiya iyo dadkii muslimiinta ahaa
oo waxay dhahaan hal qaafilo qura ayay 600,000 oo diinaar ka dhaceen waa tajmiidul amwaalkan oo kale adigu wixii xoolo lala wareegi karayay waa lala sii wareegay waxay samaysteen dad gabyaaya kuwa sheeka abuurayaala suugaan yahano waqtiga iclaamka ugu badan ee gabayga iyo wixii la mid ahaa waxaasiyoo tirinaya ammaanta nimankan tataarka iyo weeraryahannimadooda dacayaadka la faafin jiray maalan kutubu taariikh ay qorto waxa ka mid ah tataarka warkooda lama helo qofna warkiisa ma waayaan yani waa CIA bay leeyihiin iyo FBI khatara oo adigu meesha istaagtaba way ka war hayaan laakiin iyaga akhbaartooda lama gaari karo dacayaadka la faafin jiray waxa ka mid ah tataarku hadday magaalo soo galaan wuxuun bay galaan iyadoo aan laba ogeyn sida ay waxooda u sirayn karaan tataarka dacayaadka la faafinaya waxa ka mid ah dumarkoodu sida ragga u dagaalamaan nin iyo naagkii ku hela waa isku mid askarta waa kaa takhallusaysaa dacayaadka la faafiyey waxaa ka mid ah tataarku wax nooloo ay helaan way cunaan hilibka wax ka xaaraansanay ma jiraan xataa dadkay cunaan baa la yidhi caalamul islaami oo dhamma waa kurbanaya nimanaan waxbaba reebayn wuxuu arkaba qof liqaya ee noolo ah waa khatar waa wax laga biqi karo waxaa la gaadhsiiyey inay yidhaahdaan tataarku maadaama uu wax kasta cunayo ninka tataarka ahi saadba uma baahna wuu iska soconaya bahal iyo dad wuxuu helaba maadaama uu cunayo ma qaataan saadka baa la yidhi iyagu waa nimankaasi socda dacayaddu waxay gaadhay xad oo aad u bajiyaan dadka waraaquu qorayey waraaqahay u qorayeen boqorrada way gilgishay maalan bal ama hal warqadaydiin akhriyo oo ka timi boqortooyadii tataarka iyo hoolaakiya kooxdii oo ku socota boqor yaro ka mida boqorradii muslimiinta ah wuxuu leeyahay naxnu junuud ullah bina yantaqim miman cataa watajabbara wataqa watakabbar وبأمر الله ما أتمر نحن قد أهلكنا البلاد وأبدنا العباد وقتلنا النساء والأولاد فيا أيها الباقون أنتم بمن مضى لاحقون يا أيها الغافلون أنتم إليهم تساقون مقصدنا الانتقام وملكنا لا يرام ونزيلنا لا يضام وعدلنا في ملكنا قد اشتهر ومن سيوفنا أين المفر دمرنا البلاد وأيتمنا الأولاد وأهلكنا العباد وأذقناهم العذاب وجعلنا عظيمهم صغيرا وأميرهم أصيرا تحسبون أنكم منا ناجون أو متخلصون وعن قليل تعلمون على ما تقدمون وقد أعذر من أنذر أوراغض صغري سجعي عربادة وقت قاس سعودي أيان من أدبيها لنا أقرأ وحلي أنه أسكرتي إلهي بانوني wixii kibre ee qooqa ee isweyneeya ee ilaahay amarkiisa qaadan waaya ayaa annaga ilaahay nagu cidhib gooyaa buu ku leeyahay askar ilaahay baanu noo wixii noocaasa waa gumaadnaa annagu buu leeyahay dhulka waanu halaagnay oo addoomihii waa tirtirnay oo dumar iyo carruurtiiba waa laynay war hoy kuwa hadhayow kuwii dhintaa ka daba tegaysaa war kuwiinan warmoogga ahi xaggaasaa laydiin sii wadaa dantayadu waa argoosi boqortooyadeedu waa mid aan la soo celin cadaaladdeedu waa mid faaftay seefahayaga xaggee laga geli dhulka waa tirtirnay carruurta waa agoomaynay addoommaha waa halaagnay cadaabka dadka waa dhadhansiinay kuwooda waaweyn yar yar baanu ka dhignay boqorradoodana maxaabiis baanu ka dhignaa ma waxaa u malaynaysaan inaad naga baxsan doontaan goor dhow ayay idin garan doontaan waxa aad la kulmi doontaan war ninkuu digay kuma dilin buu ugu gebagabeeyey waa waraaqdu u diray boqorradii muslimiinta ayaa meelaha waraaqda loo dirayaa qaabkaasay u qoran tahay dee boqorraa walba iska baqayay oo gaashaanbuur dhama isugu tagtay oo waraaqaha loo diray ay kuwan yihiin waxay keentay in aada loo kurbado markaynu saddexdaa qaybood ka nimaadno ee ah taakulayntiisi iyo zaadkiisii siduu u dhowrtay iyo waddooyinka u samaystay xilfi wadaag siduu u samaystay iyo gaashaanbuurta uu dhistay iyo iclaamka iyo hanjabaadda uu samaystay qaybta afraad waxa weeyaan militarily siduu u diyaar garoobay militarily diyaar garowgiisa laba dhan buu ka sameeyey
dhan waxa weeyaan ciidanka muslimiinta in la daciifiyo, dhanna waa ciidankiisa weerarka galaya siduu u xoojiyey ciidanka muslimiinta. taarikhyahanadu waxay sheegayaan ninkii ra-iisul wasaaraha ka ahaa meesha ee mu'ayiduddiin alcalqami wuxuu heshiis kula galay hoolaako inuu boqorkan muslimka oo aynu nidhi waa nin siyaasadda haafilka ah waa inagii soo sheegnay, sidiisa kale waa iska wadaad miskiinah oo caqiidadiisu suubantay sida la sheegay, laakiin war badan nin og maaha marka baabkan la eego. kaas miskiinka oo aad arkayso dee siyaasaddiisu halkay joogto waaxid shiici aan la madbaaba ahayn inuu kalsoonidii waddanka oo dhan siiyey ayuu wuxuu ku qanciyey wakhtiga khatartaa lagu jiraa waxa lagu qanciyey ninkan odayga ah ee madaxda ah ciidamada miisaaniyaddooda in la dhimo oo ciidamadan tirada badan leh kharash badan baynu u hayaanay in la yareeyo oo tasalluxan tirada badan leh inaynu iska dayno iyo hubkan iyo waxaanaynu samaysanayno oo dhan inaynu iska dayno. waxaynu u baahanay buu leey wax soo saarkeennu si uu u bato ciidamada badh inaynu qaybta beeraha iyo sinaacada iyo wax soo saarkan kale ee waddanka inaynu ciidamada badh u wareejinno, isla markaa dunidu ay u aragto inaynu nahay dad nabadgelyo oo aan dagaallo iyo rabshad iyagu doonaynin si ay u muuqato. waxay idhahdaan boqorkii fikraddaa wuu la dhacayba in ciidamadan la yareeyo. awowgii markuu meesha joogay 100,000 oo askari buu haystay oo tababaran. kanina bay yidhaahdeen ciidamadii wuxuu isku soo ururiyey 10,000 90,000 baa la sii daayey. weliba waxay leeyihiin 10,000 waxay noqdeen ciidan iska daciifa oo hubkoodu gaboobay oo faqri uu ku dhacay oo qaarkood meelaha ay dadka wax ka weydiistaan yacnii askari moralku ka dhinto xataa wuxuu cuni lahaa aan saani u haysanin. ibnu kathiir markuu masalada tan ka warramayo wuxuu leeyahay eedoo dhan waxaa iska leh ra-iisul wasaarihii waddanka, laakiin doctor raakib asarjani isagoo tacliiqinayo wuxuu leeyahay ibnu kathiir lama qaba waddanka ninka u madaxda kan haba fikradda ha qaba buu yidhi, laakiin kan laga dhaadhiciyey isba ma dhaamin buu leeyahy ee ummadda mas-uulka ka ahaa ee fikradda tan qaatay ma ahayn buu leeyahy fikrad saxa. iyada oo ciidankii muslimiinta ee khilaafadu uu sidaa u eg yahay, ciidankii tataarkuna uu xilfi wadaaggaa tirada badan la soo samaystay, ayaa haddana khilaafa alcabaasiya waa qalbi alcaalam alislaami, waa dowlad 500 oo sannadood soo jirtay, waa dowlad dunidu ay ku xisaabtamto, waa magaalada dunida ugu dad badan leh 3 milyan oo qof baa baqdaad degan, waa magaalada dunida ugu cilmi badan leh, ugu maktabada badan leh, ugu aqoon yahan badan, ugu farsamo yaqaan badan, ugu technology sarraysa. mahmaa uu sidaa yeelay haddana ma aha meel lagu dhiiran karo, waana qalbi alcaalam alislaami. idan ku xisaabtan militariyo aad u tiro badan bay leedahay. sidaa awgeed ayuu wuxuu dalbaday hoolaakoo ciidamadiisan beershiya degan oo quri inaanay dagaalka gelin ee in la siiyo taakulayn wax allaaliya wuxuu u baahan yahay. waxaa amar la soo siiyey kow ciidamadii beershiya iyo adarabijaan iyo intaasi isagu degan yahay joogay oo dhan inay qiyaadatu hoolaako galaan oo dagaalka xaggaa ka galaan. waxaa kaloo la faray bato ibnu jaajo ninkii aynu lahayn ee awowga u ahaa jinkis khan oo dowlad gaara iyagu samaystay alqabiila dahabiya golden hord meel qabiiladii la baxday waa foolgaha webigan volga la yidhahda iyo agaarkeeda ayay dowlad nawcun maa dowladda weyn hoos timaada laakiin xukunkeeda idaarigii uu mustaqil yahay ayuu bato xukuma. bato baa waxaa la yidhi ciidan waa inaad adna dirtaa oo meeshaasi geysaa. bato wuxuu soo diray isagana ciidan 3 inan oo walaalkii dhalay ay hogaaminayaan oo tiro badan ayuu yidhi idinkuna dagaalka ka qayb gala. waxaa kaloo la yidhi meesha waa khilaaf alislaamiya aynu duulimaadka kunay kuma filla, ciidankii yurub loogu tala galay oo turkiga xaggiisa sare jooga oo dagaalyahan bijo la yidhahdo aynu hore uga sheekaynay uu hogaaminayo, isna waxaa la yidhi ciidankoo dhan dib u celi, dhammaantaa ciidankii yurub oo dhan dib u qaad, khilaafa alislaamiya baqdaad dib u gal baa la yidhi isagana. bijo in 1,000 kilomitir ah buu baqdaad u jira, amarna waxa lagu siiyey inuu dib u noqdo. 1,000 kilomitirna muslim baa degan,
500 kilomitir meelahaasi oo dhulka Turkiga 500 kilomitir oo Ciraaq iyo dusheeda dhammaanteed waa dawladihii yaryar ee muslimiinta waa salaajiqadii aynu sheegaynay meesha ka talinayeen shaamiyiintu qaybtay ka talinayeen ee ayuubiyiinta ahaa Muusa shan aynu lahayn Badruddin baa haystay dhammaanteed waa duwal yaryar oo islaamiya laakiin waxa la faray intaas oo dhan inuu ka tallaabo oo uu tago meesha la yiraahdo Baghdad inuu ka dagaal galo waxa kale oo ciidan laga soo ururiyay boqorkii Armenia Haytham isna wuxuu keenay ciidan ka socda wadankiisii boqortooyadii yarayd ee Georgia Kurj iyana xilfoodaga la gashay iyana horin kale soo dirto ciidana oo dagaalka ka qayb gasha maadaama meesha ay khilaafadii tahay khatar tahay dawladdii weynayd ee China ka talinaysay dib baa loogu noqday waxa la yidhi ciidan si gaar ah u tababaran baa loo baahan yahay kunnin oo gantaalada dabka sida tuuri yaqaana baaladan wax lagu gubo oo China ah ayaa iyana China laga soo diray oo iyana qalacaadka nimanka dabka xagga sare kaga guba ah ayaa China laga soo diray intaasoo ciidana ayaa la isugu keenay dabeetana saddex qaadadii macruufka ahayda ayaa la yidhi baa hogaaminaysaan dhammaantiin waxa hoos tagaysaan baa la yidhi Holeko saddex nin oo qaadadii macruufka ahana wuu wataa waa Holeko oo ciidanka qayb wata katabqa waa oo nin ka mid ah ciidamadii tataarka waliba geesiyadooda waaweyn isla markaana isagu masiixi buu ahaa katabqa taariikhda haddaad dib u daraasaysaan waa qitas ninkay isheleen tataarka waaga la soo jabin doono caynu jaaluut macrakada la yidhaahdo goobahaasi xagga qoladan gaalada ninkii hogaaminaya weeyaan katabqahani marka waa nin masiixiya isla markaana tataara hogaamiyaashooda waaweyn ka mid ah katabqana qayb baa loo dhiibay qaybta saddexaadna waxaa wata bijo oo ah qaa'idkii Yurub inuu furto lagu talagalay saddexdaa qaa'ida waaweyn baa wata ciidanka tataarka mushaarikiintii yaryaraana waa dhex socdaan oo uu ka mid yahay الناصر يوسف أمير دمشق isagu inankiisii alcaziiz iyo ciidan watuu soo diray oo meesha ka qayb galay boqorkii Muusal Badruddin Lu'lu firqa koox iyana taageerto oo militariya buu soo diray maxaa la yiraahdaa Karmaankii joogay Qutbuddin waxoogaa kooxu soo diray inankii uu dhalay Sacd ibn Abi Bakr oo isna meesha joogay waa nin ka mid ah Karmaanku isku hayay boqorada yaraa isna ciidan buu soo diray طوائف يريرو مسلمين iyo Kristan iyo ciidamo yaryar oo kale tiro badanina meeshay marayaan waxa soo ciidana la isugu keenay muslimiintii tirada badnayd ee Turkmenistan iyo dhulka deganaydna ciidamada leeyahay marka meesha tan caalamka oo dhan baa maraya askar muslimiina guutooyin gobollo islaamiya ka socda guutooyin gobollo Kristana ka socda iyo saddex guuto oo waaweyn ama saddex ciidan oo waaweyn oo ka socda nimankii la oran jiray tataarka ciidanka inta leeg bay isugu yimi waxa jirta markuu ciidankii soo dhaqaajiyay ayuu Holeko mas'ala kale ka fakiray oo ah luuq yar baa u dhaxeeyay isaga iyo Baghdad oo ay degan yihiin nimanka Shiicada Ismaaciiliinta la yiraahdo xashaashiyiinta dabeetana wuxuu isiri armay nimankan rabshad kugu keenaa mala waxa fiican intan inaad cagta mariso ka takhallustid shiicadii meesha joogtay ayuu weerarka ku qaaday shiicada meesha tani waa niman aad u dagaalyahanaa bay ahaan jireen dhul buuraley oo khatarna degan qalcadoodii ugu weynayd markuu dagaalka ku qaaday ayaa taa'ifada ninkii hogaaminayay ayaa soo baxay Ruknuddin nin la oran jiray baan filaya wuxuu dalbaday inuu heshiis la galo Holeko intan dambe nin siyaasi uu noqday heshiiska waa ka aqbalaya buu yiri laakiin qaa'idkiisii miidaaniga ahaa ee ciidanka hogaaminayay ayaa diiday dabeetana dagaal bay ku qaadeen qalcadii way furteen wixii ku jirayna waa laayeen Ruknuddin oo shiicada haysta wuxuu codsaday shiicada inta kale Ismaaciiliyiinta oo dhan
heshiiskaan qaadanaya ee heshiiska ha layga aqbalo saasaa baa la yidhi haa holaakoo khito kaluu dego wuxuu yidhi khalaas waan aqbalay laakiin bishard shardigaana ku aqbalaya waxa weeyaan weliba taarikhyahanadu shardiga kan markay ka warramayaan qiso tiro badan bay sheegaan kow daa'ifada tani ismaaciiliyada la yidhaahdaa dagaaladii iyaga iyo tataarka dhex maray waxay dileen jagtay ninkii la odhan jiray iyagaa loo tiriyaa eena jinkis khaan ahaa ciidamadan holaaka uu wadana waxaa la socota jagtaygaasi inanuu dhalay oo amiirada oo aabbaheeda inay u aarto raadcaynaysa dabeetana waxay istidhi iyaduna halkan aarkii wuu ka dhadhow yahay inaad aarkaa hesho ruknuddiin waxaa la yidhi waxaanu kuu diraynaa qaraaqorom boqorka heshiiska la soo gal qaraaqorom baa loo diray manko khaan markuu yimi manko khaan wuu xanaaqay la kulmi maayo buu yidhi holaakana wuxuu ku yidhi fardaha tataarka inaad dariiqa intaa leeg soo mariso soo daaliso iyagoo waxaasoo kala wado aad ii keento may ahayn buu leeyahay fardaha tataarku inay sidaa u daalaan iyagoo ninkan oo kala wada ma aha buu yidhi waxa dib baa loo soo celiyey ruknuddiinkii meel dhexe markay marayeen ayay madaxa ka gooyeen si aan la garanayn ilaa hadda taariikhdu ma sheegto sababtii lagu dilay laakiin meel dhexe markii la marinayey ayuunbaa laga takhallusay daa'ifadii ismaaciiliyada oo boqorkoodiina la dilay ayuu holaaka wuxuu ku yidhi heshiiskaan idinla galay laakiin hal midaan idinka rabaa waa istiro badiseen oo wasnigaa leediin wasni aan ahayn miisaankiinna iyo xajmigiinna awood aan lahayn baa sheeganaysaan heshiiskaan idinla gelaya laakiin waxaan wax idinku siinayaa awooddiinna markaa soo bandhigtaan intaa ay leeg tahay saa daraaddeed waan idin tirinayaa tiraan wax idinku siinaya shiica ismaaciiliya tiradeedu intay leeg tahay baan wax ku siinaya waxay idhahdeen nimankii shiicada ismaaciiliyada maanta wax laynoo ogolyahy xooggeenna aan muujinno maxaan samaynaa meel kastoo ismaaciil jira ha laga war doono shaam kuwii deganaa qaar baqdaad meel kastoo ay joogeen waa laysaga yimi waayo waxaa laisleeyay maanta xoog baa helaysaa markay isu wada yimaadeen ayuu gunta ka gooyay xabadba kama sii dayn holaako shiica alismaaciiliya waktigaasaa taarikhda ugu dambaysay war dambe ay leeyihin aqa khaankan iyo midharhkan meelaha marmara ayaa ka soo hadhay laakiin holaaka intuu ururiyo meel isugu wada geeyey markuu isla helayna madaxa ka gooyo dhammaantood diray shiicadii markuu meel ku hubsaday oo waxay yidhahdaan madaxdoodii qaar ka mid a ama raggoodii waaweynaa inantii jagtay uu dhalay salqaan baa la odhan jiray zalqaan khatuun ayuu u dhiibo u qaar yidhi kuwaana aabbaha u lah dabeetana iyana aabbaheed bay koo xullaysay 655 ayaa shiica alismaaciiliya la baabi'iyey waxaa bilaabmay dagaalkii baqdaad markuu intana ka takhallusay hadda wuxuu joogaa baqdaad siduu shaqo uga qaban lahaa shirweynaa loo fadhiistay magaalada hamadaan la yidhaahdo ee faris bershiya ku taalla ayaa shirka lagu qabtay 450 kilomitir ayay baqdaad u jirtaa shirkaa waxaa lagu go'aamiyey kow ciidanka in 3 qaybood laga dhigo qayb uu hoggaamiyo holaako qalbiga ciidankana uu noqdo imdaadaadna la siiyo siiba imdaadaadkii ama taakulayntii ka timi alqabiila adahabiya ama golden hortka qolada la yidhaahdo oo ubato ibnu georgi uu hoggaaminaya oo gobolku xukumayaya wixii taakulayna ka timina adigu kaxaysaa la yidhi weliba ay kula socdaan armeniya iyo georgiya wixii ciidane ka yimin ay kula socdaan intaasi waxaa la yidhi waa wadnaha dagaalka wadnihiisa inta ka qayb gelaysa holaaka hoggaaminaya ciidanka labaad waxaa la yidhi koonfur bari baqdaad ha ka soo galaan ciidanka koonfur bari ka soo gelaya waxaa la yidhi katabqa ayaa hoggaaminaya isaga waxaa la amray inuu socdo meeshu waa dhul buuraleeya ciidanka intan leegi ma wada mari karaan in la kala qaybiyaa baa la rabaa dusha ka wareeg baa la yidhi iyo dhulka suhuusha ah baqdaad adigu xagga koonfureed ka soo gal baa la amray ciidanka saddexaad waa ciidankii ka soo socday anadol turkiya xaggeeda sare waa ciidanku bijo ninkii la yidhahda hoggaaminayey waxaa la amray 1000 kilomitir intuu soo jaro inay isku wakti soo galaan magaalada baqdaada
taariikhyahanadu waxyaabaha cajiibka ay sheegaan waxaa ka mid ah 1,000 kilomitir ciidan socda oo dhul socda oo diyaarada iyo wax ilaalinaya aanay jirin ama waddada uu hagaajinaya aanay jirin oo aan la kulmin wax kamiina wax dhul jiifa wax meel u galay waxba aan la kulmin oo 1,000 kilomitir ba dawladda yaroo islaamiga ay degan yihiin oo haddana socodka dheeraynayo isku dayaya nimanka hamadaan ka dhaqaaqay inuu kula tago isku waqti magaalada Baghdad uu kula tago isla markaasi ma jiro muwaasalaadkan hadda cusub ee telefoon iyo taar iyo wax lagu wada hadlayo farda wata la rabo fardihiisaasi inay mar la galaan Baghdad ciidamada dhanka ka soo socda laakiin dhulka uu marayo waa salaajaqadii aan sheegayay Mosul buu soo maray oo odaygii Badruddin Lu'lu ciidanka soo diray oo haystay waa oday 80 jira taariikhyahanada qaarkood baa waxay dhaawaa 100 jir aakhiru sii jeeda haddana gaaladu daba socdaa uu gargaaraya Baghdad markii la qabsaday 3 bilood kadib baa filayaa buu dhintay kani Badruddin kani maca dalika aakhirada ciidama xasuusinay tataarka la arkaa xagga tataarku kaga jira magaalada Baghdad waa magaalo leh qalcaad xusuun tiro badan oo adag oo ku wareegsan waa magaalo 5 qarni dawladdan ay ka talinaysay waa magaalo uu joogo khaliifkii 700aad baa jooga oo boqorkii 700aad ee muslima ayaa ka talinaya laakiin dhufaysyada iyo hubka iyo xusuunta hadday rag waayaan haba ma tara almustacsim billaah waa nin noloshiisa marka la eega bay leeyihiin nin fiicana qur-aanka akhrista ay leeyihiin caqiidatu salaf buu haystay cibaadaadka ku fiican faqarada wax siiya laakiin waxaasi waa naftiisa ummadda wixii anfici lahaa muu hayo ummadda waxa anfaca qaa'id soo jeeda dunida waxa ka socda garanaya balaayooyinka ku xiiran ka fakeraya taktiik fahamsan iyo qaab uu diyaar garo kaasa anfacaya dadka ولذلك ابن كثير markuu ninkan ka warramayo wuxuu leeyahay كان حسن الصورة nin qurux badan buu ahaa buu yidhi جيد الصريرة taariikhdiisa iyo laabtiisu ay aad u fiican tahay صحيح العقيدة عقيدة fiican مقتديا بأبيه المستنصر بالله في العدل أبيه ku dayanaya xagga cadaaladda صدقة badan culamada sharfa iyo dadka cubaada ah madhabu salaf sunniya ku sugan laakiin madhabu salaf in wax la iska celiyaabaa ku jirtay xaggan un cibaadada iyo intan buu kaga sugnaaye baabkii loo baahnaa kagama sugnay غافل عن السياسة buu haaba yidhaahdaa wadciga waxa ka socdana si fiican uma garanaynin ragga sida loo kala doortana si fiican uma garanaynin raga baa joogay oo ka mid yahay adeerkii alkhafaaji ninkii la odhan jiray oo ka mid yahay rag badan oo ragaa jiray laakiin raggii ragga ahaa waa la durkiyey mujaahidudiin aybak baa ka mid ah mujaahidudiin aybak iyo mu'ayidudiin alcalqami col bay ahaayeen kan shiicigaa baa kor loo soo qaaday kan kale waa la durkiyey idan muu lahayn aragti siyaasi oo dheer muu lahayn kafaa'o qiyaadiya sida uu doctor raaqib sarjani leeyahay muu lahayn himmo koraysa muu lahayn geesinimadii qaraarada lagu qaadan lahaa wakhtiga kana adag muu lahayn buu leeyahay krismihii uu u baahnaa inuu ummadda uruuriyo oo dadku ay ag joogaan muu lahayn buu leeyahay ragga sida loo miidho ama loo doorto ama loo xusho 16 sannadood waa in laga diyaar garoobo way ahayd intuu boqorka ahaa waa 16 sannadood oo sanadkiisii 17aad in laga diyaar garoobo way ahayd mase dhicin ee waa ka askartiisii beeralayda ka dhigay iyo sanaacinta maxay ku gabagabowday markaa waa madax ummaddana aan diyaar garaynaynin kursigana aan ka kacaynin waa kuwa maanta joogow qofku waxay ahayd ama inuu shaqada u qumo ama inuu banneeyo cid kaloo u qumi karta tago anaana fadhinaya waxna tari maayo qaacidadaa bay joogtay ragguu doortay waa kuwan khiyaamaynaya ee ninka kan kolba u tegaya magaalada Baghdad 3 milyan oo qof baa jooga culamada dunida ugu tiro badan baynu odhan karnaa baa degan
waa dhul raaxo culum nadariyo tiro badan baa taalla waxay maqleen wixii afghanistan ka dhacay wixii madaabix ka dhacday wixii dawla alkhwarzamiya ka dhacay wixii muslim la laayay inay wax ka taraan daayada iyagaaba kala qayb galay mararka qaarkood sida la sheegay dawla alkhwarzamiya sidii looga takhalusi lahaa maadaama iyaba ay kaa tataarka ku caawiyeen in laga takhaluso iyana kuwii ag joogay baa waxay ku caawiyeen in iyaga laga takhaluso muxaram 12 markay ahayd 656 hijriyada waa sanadkii 656 hijriyada bishii koowaad ee muxarama 12keedii markay maraysay ayuunbaa waxaa la arkay dhanka bari ee magaalada Baghdad isagoo ciidamadii hoolaako ay taagan yihiin oo uu bilaabay inuu dhigto madaafiicdiisii wixii gaarmi lahaa dhanka koonfur barina koonfur yani bariga oo koonfurta raacsiisanna katabqaabaa ka soo galay markaasuu boqorku hambaabiray dabeetana ijtimaac taari ah kulan degdega ayuu qabtay kulankii degdega ah baa laga wada hadlay kulanka qola waxay leedahay aan la heshiin oo isdhiibno oo nabadgelyo arrinta ku dhammayno waa fariiq uu hogaaminayo ra'iisul wasaarihii waddanku mu'ayidiin alcalqami laba nin oo kale nin la yidhahdo mujaahidiin aybak iyo nin la yidhahdo sulaymaan shaahna waxay leeyihin war waxaas wax lagu hadla maaha aan jihaatanna wax iska celinno oo cidina nabad waxaynagu siin maysee aan difaactanno dagaalanno muddo ra'yigii markii la rogrogay boqorku maadaama nin iska niyad fiican ahaa kuwan jihaadka sheegay buu iska raacay wuxuu yidhi waa yaan wax iska celinno dabeetana mujaahidiin aybak iyo ninkii la socday sulaymaan shaah baa la yidhi ciidan diyaariya nimankii markay ciidankii diyaargaroobeen oo xaggan xusuunta ay ka samaysan tahay iyo qoladan in laga hortago loo diyaargaroobayo ayaaba war yimi laleeyay alambaar baa la maraya ciidankii yurub ka soo galaa isna halka maraya meeshan ambaar imka la yidhahdo ciraaq ayuu maraya waa meel aad u dhow aan waxba u jirin waana dhul bannaan oo dabeetana waxaa la yidhi waxoogaagii ciidankee la ururiyey war bal qoladaa waajaha mujaahidudiin wuu soo baxay isagoo ciidankiisii wata wuxuu ka hortegay bijo iyo ciidamadii dhankan yurub ka soo galay ee 1000 kilomitir soo socday ayuu ka hortegay laakiin nasiib darro trainingku haddaanu fiicnayn oo si fiican taktiigii military waa laga tiro badiyey waa uu tallaabay webigii bay iyana ka soo tallaabeen meel dhoobo oo mustanqacaad oo biyo fadhiisinoo xagga shishe looga maray sidii wax jabay baa la ysaga dhigay ciidankiisii wuu soo eriyay oo kooxdii bay ka daba yimaadeen injineero ciidanka la socday bijo wato ayuu diray xagga dambey ka wareegeen biyo xidheennadii ku xidhnaa meesha waa la faruuray oo biyihii waa la soo daayey si waddankan oo dhan dhooba ay uga dhigaan jusuurtii meelihii laga tallaabayeyna waa la jabiyey markii ciidankii maxaa la yidhahdaa taakulayntii oo dhan laga jaray xagga dambe webigii la faruuray ayuu ciidamadiisii ku soo jeestay dhoobo iyo meel aan farasba ordin la limanayo ayay joogaan gamtaa loo joogsaday mujaahidiin aybak iyo in yaroo la socotay mooyaane ciidankana waa laga takhallusay dib ay u soo noqdeen iyagoo firdhaday Baghdad soo galeen iyadoo waxoogaagii ciidankee la ururiyeyna bijo uu badda ku cabbay ka soo takhallusay waa ciidan goobta lagu dagaalamayo dhulkiisii ay tahay oo haddana looga aqoon bato lagu khiyaameeyey waa dhulkiisii waa ciraaq gudaheeda lagu dagaalamaya laakiin waa looga taktiiki badiyey dabeetana iyagii baa meeshii ku jabay Baghdad buu soo galay waa 19 muxarram baa dagaalkani dhacaya bijo ayaa hore u soo socday isna dhanka waqooyiga ayuu magaaladii Baghdad ka soo fadhiistay magaalada Baghdad marka hadda waxa ku xeeran saddexdii ciidan iyo wixii ay wateen hoolaako oo bari jooga katabqa oo koonfur bari jooga iyo waqooyiga oo uu joogo ninka la yidhaahdo bijo
jalse labaad baa loo fadhiistay ibn alcalqami markii mujaahidiin aybak iyo kooxdiisiina ay soo jabtay boqorkiibuu ku noqday wuxuu leeyahy kama maaranno diblomaasiyad inaynu haatan bilowno isticmaalno طaawilat almufaawadaat miiska wada hadalka aan tagno war kale ma yaallo laakiin miiska wada hadalka yaa wada hadla taariikhda bini aadamka mufaawadaadku yay dhex maraan laba ninoo xooggan hadday mufaawadaad dhex maraan wax caqliga gala ka soo baxa laakiin miskiin iyo nin murqiyo xooggane haddii mufaawadaad dhex maro mufaawadaadku dee waa un aqbal ilaa wax ka dambeeya haddaad aqbali weyda waa ku burburinaya weeyaane mufaawadaad weligaa haddaad maqasho mufaawadaad baa dhacaya falastiin iyo israa'il mufaawadaad kastoo dhex mara maxaa ka soo baxa heshiis ay tanaasulaad sameeyeen falastiintu hadhow baa wixii soo baxay israa'iil fulin weydaa markaasaa waxa la yidhaha mufaawadaadka ha la cusboonaysiiyo haye dib baa loo cusboonaysiiyey maxaa ka soo baxa shuruudan bay soo xidhaan kuwan baa soo tanaasula waa la soo saxeexaa way fulin weydaa israa'il hadhow baa la yidhaha mufaawadaad saddexaad mufaawadaad unbaa socda ku kastoo bilaabmaana waa tanaasulaatun haatatan magaaladu waa xisaar bay ku jirtaa mufaawadaad baana bilaabmay mufaawadaadkii iyuu dirtay boqor u fiirso boqorkan halka ay joogto siday taarikhyahanadu leeyihin labadii nin aynu lahayn hooleekay hoosta kaga xidhnaayeen ayuu wuxuu u diray inay noqdaan mufaawadiinta dhankiisa ka socda waa kuma waa mu'ayadidiin alcalqami iyo batriirikii mekako la yidhaahdo kiniisadii kristanka ee joogtay baqdaad batriirigeedii mekako iyo mu'ayadidiin alcalqami labadaasaa la diray inay mufaawadaadka hoolaaka la soo galaan hoolaaka labadoodii markay u yimaadeen wuxuu yidhi dhegaysta adiga waxaan kuu ballan qaadaya wax masiixiya inaan la taaban kiniisadahaga iyo waxaa gura inay kuu badbaadaan wixii lagu siin karana lagu siiyo adna waxaan kuu ballan qaadayaa baqdaad maalintaan gacanta ku dhigo majliska xukumaya ayaan madax kaaga dhigaya baqdaad iminka ra-iisul wasaaraad ka tahaye marka kan adaa talin doonaba meesha qabsanaya maxaa tala ah markaa dawladda waxaa korkeeda saaran horta labadii nin ee dagaalamay iyo kooxdoodii in la keeno shayga koowaad mujaahidiin aybak iyo sulaymaan labadaasi de waa mutaطarifiin iyagu ahlu taطarufkana dunida lagama ogola labadaasi waa inay soo xero galaan ثaaniya natiijadii mufaawadaadku waxay noqotay markaa dagaalka oo la joojiyo nabadgelyo dhacda hoolaako oo ogol inantiisa inuu bixiyo oo boqorka inankiisu guursado boqorka almustacsim billaahi kursigaan adigana kuu daynayaa buu yidhi reer baqdaad oo ammaansiyo waxani waa wixii uu hoos ula galay wixii aan idiin sheegayo hore waa wixii uu hoos ula galay labada nin laakiin mufaawidku muxuu u geynayaa boqortooyadii waxaa loo keenay ninkii heshiis baanu la gallay heshiisku muxuu dhigayaa dagaalka in la joojiyo nabad la qaato hoolaako inantiisa in inankaaga loo guuriyo si nabadda loo adkeeyo reerku u xidido kursiga boqortooyada in adiga lagu daayo aad boqorkaaga ahaato reer baqdaadna ammaan in la siiyo intaasi waa intay iyagu helayaan shuruudda ku xidhani maxay tahy laakiin bishuruud waa inay shuruudatan fulisaan intaasaan anugu aqbalay buu yidhi hoolaako laakiin shuruudan baa fulinaysaan waa maxay shuruudu wax allaaliya waxa qalcad ee baqdaad ku yaalla waa inaad dumisaan shardiga koowaad shardiga labaad waxa weeyaan wax allaaliya wax khanaadiq godadka dhufaysyada aa leediin oo dhan waa in la dumiyaa shardiga labaad waxa weeyaan wixii huba in la soo dhiibo saddexaad wixii hub ah in la dhiibo shardiga afraad ee ugu dambeeyana waxa weeyaan inaa aqbashaan dawladda guud ee tataarka ee qaraaqaram caasimadeedu tahay inaa hoos timaadaan raciyada inaa ku biirtaan intaas haddaa annagu wax kale uma soconno hoolakaale annagu waxaan u soconnaa inaanu cadaaladda sugno xorriyadda iyo ammaanka inaanu ilaalinno qaabkaasaan u soconnaa taarikhdu waxaad mooddaa un beyj horoo jiray un in dib loo qoro ma aha taarikhda bini aadamku waxa taarikhdan bini aadamku in aadamun weeyaan waxaan dunida jooga waa aadam iyo intuu dhalay
god aan hore loogu soo jabini ma jiro ilaa iyo maanta godadka jooga haddaad taariikhda dib u akhrido waxaan tan u akhrinayaaba ma aha inaan idin raaxeeyo oo muslim baaba ayaa idinka raaxeeyo laakiin waa inaan idin tusiyo taariikhdu bayjaj la rogo inteeda badan inay tahay ciraaq soo maydan maqlaynin waxaa lagu qaaday hubka in laga mamnuuco hubkeeda inay gubto united nationka in loo soo diro waxa hubleeda inay gubto cunaqabatayn lagu sameeyo kan lagu sameeyo muqaabilu dalik waa maxay nabadgelyaa laydin siinaya kadibna in xilfi wadaag uu maraykan soo samaysto dabeetana biduuni qaanuun in lagu qabsado kullu dalik taariikhda bini aadamku baqdaad suquudkeedii shalay ahaa iyo kii dhowr boqoloo sannadood 800 sano ku dhow ama 900 sano ka hor dhacay waa isku weji eegin 800 sannadood beejku dib unbuu isu soo rogay boqorku si aanu mufaawadaadkaasi talakuba uga samayninna garaacistaa lagu bilaaba in magaalada garaacistu ay ku socoto bishii safar la odhan jiray bilowgeedii baa waxaa la bilaabay 4 maalmood in garaacis xooga lagu sameeyo magaalada ibnu kathiir wuxuu sheegayaa daartii boqortooyada square laga qabtay buu yidhi dabeetana gamuunyahanadii baa gamuunka ku ganay gamuunku waa leebka waa dee waxyaabihii la isku garaaci jiray madaaficda ugu waaweyn baa lagu ganay taarikhyahanadu waxay sheegaan boqorku wakhtigaasi jaariyadihiisii mid ka mid a cayaaraysay inan carafa la yidhaahda hortiisa ka cayaaraysay oo ahaa jaariyaadkii mulkul yamiinka lagu haystee joogay ayaa cayaaraysay taarikhyahanadu waxay sheegaan carafo boodboodaysa ayaa gamuun ku dhaca markaasuu boqorkii naxay hortiisa markay inantiina ku dhacday ayuu boqorkii naxay bay yidhaahdeen waxay yidhaahdaan gamuunka lagu dhuftay waxay ugu soo qoreen bay yidhaaheen weedh ah idaa araada allaahu infaada qadaa'ihi wa qadarih adhaba min dawi lcuquuli cuquulahum baa ku qorrayd bay yidhaahdeen ilaahay hadduu doonayo arrinkiisa inuu fuliyo kuwa caqliga la unbaa caqliga laga qaadaa waxba kala garan waaya dabeetana wixii la rabaa fula gamuun ay ku qoran tahay inantaasi ku dhimatay bay yidhaahdeen boqorku markaasuu kabashkabashta bilaabo wuxuu yidhi daahiyada guriga ha lagu badiyo waxyaabaha kana aanu gamuunku soo maraynin daaqadaha in la adkeeyo ayaa la bilaaba arrintii meel adag bay maraysaa alcalqami mu'ayadiin alcalqami wuxuu yidhi mufaawadaadka aan ku noqdo mar labaad ma bilaabaa boqorku wuxuu yidhi haaya adigu tag mufaawadaadka adigu iga aqbal wuxuu yimi holaako mar kale mufaawadaad baan rabnaa inaan kula galno masaas ahaa wuxuu yidhi keligaa kuma qaabili karo ee waxaan rabaa markaynu wada hadlayno inaad wadato magaalada culammadeedii rijaalul acmaalkeedii dadkeedii wajahadee la yaqaanay magaalada dadkii caqliga u ahaa waa inay kula socdaan haddaad doonayso inaan heshiis kula galo weliba boqorku waa inuu ku jiraa wuu soo noqday wuxuu yidhi ninkii holaako wuxuu aqbalay inaynu wada hadal samayno laakiin waxaa laygu xidhay inaynu xaashiyadeenno dhan intaynu kaxaysanno inaynu u tagno waa yahay baa la yidhi waxaa la soo kaxeeyey 700 oo ka mid ah magaalada baqdaad dadkii magaca iyo maamuuska ku lahaaya ee culamo leh ee tujaar leh ee waxgarad leh 700 oo nin oo ka mid ah waxaa la soo kaxeeyey qoyskii boqortooyada 17 ka mid ah dabeetana wuxuu yidhi holaako markii wixiiba soo baxeen waan idin kala dambaysiinaya kow boqorka iyo 17ka qoyskiisa ahi ama 17 idinka mida iyo boqorkoo quri ha yimaadaan inta kale xagga dambe ha ku sugto waa yahay baa la yidhi boqorkii iyo 17 baa u tegey 700 kale wuxuu yidhi horta iyaga madaxa ka jara 700 kale madaxaa laga jaray boqorka waxba looma sheegin ciidankii raggii uu halkan kaga yimi iyaga wuxuu yidhi iga qariya 17kii u yimina wuxuu yidhi khaliifada boqorka waxaa laga rabaa inaad hadda amar bixiso reer baqdaad inay hub ka dhigaan boqorku haatan war uma yaallo waa inuu amarka bixiyaa ka labaad wuxuu yidhi boqorkana ha la xidho boqorkiina waa la xidhxidha maxaa loo xidhxidhanayaa adigu
waa inaad sheegtaa baa la yidhi qasnadihii dawladda iyo meelihii waxyaaleen oo dhan si loo heli karo boqorkoo meesha taagan ayuu yidhi labadiisa inan soo qabto horta saddex inana uu dhalay axmed abulcabaas iyo cabdiraxmaan abulfadal ayuu yidhi ku hor gowraca isagoo taagan boqorkoo meesha taagan ayaa labadiisii wiila waaweynaa lagu hor gowracay kii saddexaad wiil saddexaad ou dhalo mubaarak abulmunaaqib la odhan jiray isaga wuxuu yidhi xidhxidha maxbuus ka dhiga saddexda hablood ay boqorka walaalayiinna ku dara buu yidhi halkaa markay joogto waxaa la yidhi ha loo yeedho wixii baqdaad rag waaweyn ku hadhay ee culammadii ahlu sunna ah waa loo yeedhay xabaalaha la dulgooyaa la yidhio dhammaantood ha la laayo iyaga iyo dumarkoodaba waa la laayay ragga la laynaya maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah sheekhii magaalada ou dhalay ibn aljawsi inankiisiiya الشheekh muxydiin yuusuf ibnu sheekh abilfaraj ibn aljawsi oo sheekhi daar اlkhilaafa ah waa la gowracay sheekha iyo saddex wiila uu dhalay bay wada gowraceen ragga meesha lagu gowracay waxaa ka mid ah labadii nin ee dagaalyahankaa mujaahidudiin aybak iyo sulaymaan shaah iyagana waxaa la yidhi ha la gowraco iyana waa la gowracay waxaa la gowracay duqii soo tarbiyeeyey khilaafada tan sadrudiin caliy ibnu niyaar nin la yidhaahdo dabeetana waxaa la yidhi ha lagu xigsiiyo a'immada masaajidda khutabada xamalada qur-aanka waxaasoo dhan ha la laayo intaaba waxaa la laayay iyadoo uu boqorku xayi yahay oo weli nool yahay dabeetana ciidankiisii baa meesha lagu fasaxay waxaa la yidhi baqdaad ha la laayo 40 maalmood baa baqdaad wixii ku noolaay oo dhan la gumaadayay waxay yidhahdaan askari baa ku soo baxay 40 carruur oo hooyooyinkood la dilay isna 40kii buu gowracay waxaa la yidhahaa boqorka isaga oo ciidankaa la yidhi kubad ka dhigta harraato ku dhintay baa la yidhi sidii harraati loogu waday taarikhyahanada qaar baa waxay leeyihiin isaga cidhibtaa lagu dilay sidii harraati loogu waday ayuu boqorku geeriyooday waxaa ka soo baxay meesha tan maktabaddii ugu weynayd ee dunida ku taallay maktabadda ugu weyneed dunida ku taalla baqdaad bay ku taallay waa maktabad haaruun urashiid oo asaaskeeda bilaabay dheeraadkii 170 ilaa 193 hijriyadu isagu maamulayay dabeetana waxaa yaalay mujalladaadka dunida ugu tirada badan leh maxaad iyada ka sheegaysaa Trablus tii Lebnaan ee ay gubeen waxaa yaalay baa la yidhaha 3 milyan oo mujallad 3 milyan oo volume maxaad u malaynaysaa tii baqdaad iyadoo baqdaad maktabadda quri waxay lahayd dad nusaakhiin oo madbacadimo jirina wax qora dad kutubta dadka u dhiiba dad mutarjimiin oo afafka kale ka tarjuma researchers degan meesha غرف wax lagu akhristo meelo wax la isugu dhigo xalaqaad ama meelo nadawaad cilmiya lagu qabto lagu niqaasho meelo ardadu ay seexdaan waa akbar waa maktabadii dunida u weynayd oo uu yaalo aqoonta dunida dhammaanteed af kasta ku qoran ha noqdo afkii yunaanta greega kii siryaaniga ahaa kii hindiga ahaa kii sakritiga ahaa farisiga laatiiniga kullu luqaat way yaaleen may odhanin maktabadda rara oo qaraa qorum geeya lama odhane waxaa la yidhi rara oo webiga dajla ku gura webiga dajla ayaa aqoontii reer nebi aadam uu kala dhexlayay maaha aqoontii muslimiinta oo qudha waa maca griigii hore maca wixii bini aadam qoray muslimka wakhtigan waxay lahaan jireen rag aqoon-yahanoo dunida loo diro oo shaqadoodu ay tahay meel kitaab dunida yaallun inay arkaan soo qoraan kitaab kasta ciddii haysta waa laga iibsanayey waana la keenayey kitaab kasta waa la tarjumayey ayu cilmi ha ku saabsanaado maktabaddii intaa leekayd waxaa la raaciyey webiga dajla waxay yidhaahdaan mudduu webigu khad dareerayey madoobaaday khadkii bugaagtan lagu guray fardaha lagaga tallaabiyey bay yidhahdaan webiga sidii maktabadda tan loogu guray 40 maalmood baa magaalada dadkii la xaaqayey waxay taarikhyahanadu sheegaan 1 milyan oo qof dad ka badan baa la dilay taariikhyadana qaar baa 2 milyan yidhaahda waxay yidhahdaan guryahu masiibku waa majaroorka halkan biyuhu ay ka dareeraan dadku markay cararaan ee guryaha saqaf ka fuulaan baa laga daba tegaysaa loo laynayo guryaha magaaladu dhiig bini aadan bay daroorayeen baa la yidhaahdaa dumarkii iyo carruurtii xagga sare kore iyo wixii sidii loo gowracayey guryihii baqdaad ku yaallay bay yidhaahaan sida roobka dhiig bay da'ayeen
waxaa la tilmaamaa markii uu baqay xanuunna dilaaceen 40 maalmood kadib 40 maalmood wuxuu amray wax dhaqaaqa inaan la sii daynin aduu magaalo 3 milyan oo qof degantay oo intaasoo kunoo ciidan soo galeen oo qaradkuna yahay wax nool inaan lagaga tegin qiyaasun waxa ka soo baxaya oo maalin iyo 2 iyo 3 aan inay 40 cashaa 40 markii lagu waday ayuu ciidamadiisii wuxuu uga baqay xanuunadu inay laayaan markaasuu yidhi ka soo baxa ibnu kathiir wuxuu leeyahay dadkii taacunni iyo balaaya ka dilaacay waman najaa min aلطacni lam yanju min aلطaacuun buu leeyahay ciddii birta ka nabad gashay daacuunkii baanay ka nabadgelin buu leeyahy baqdaad intii hadhayna kaloora laayey daacuun baa laayey goorahan ba wala eg fadhiyaan umalaynaya marka waxaan ku gebagabaynayaa uun taariikhda maantu waxaan joogaa weji ah baqdaad oo dunida taariikhdeedii ka baxday waxay cilmi lahayd waxay culamo lahayd waxay dad lahayd waxay boqortooyo lahayd dhammaanteed la laayay xoogna aan lagu diline talaxumo muslim ku dhimatay muslim isqaybqaybiyey oo iyagu col ah heshiisna iyo xilfi wadaag la gelaya cidda kale midba uu ka kale kula duulayo taariikhda dhaxalkeedu waa kaa wakti kastoo ay sidaasi dhacdana ma aha inaan dadkan ku jirin dad cubaadi ama qaar ilaahay barya ama qaar salaad badan ama qaar caqiido wanaagsan xataa boqorkaa la leeyahay baa caqiido fiicnaa laakiin caqiido fiicni quri waxba ma tarayso haddaanay ummaddu wixii la faray aanay samaynin dhammaanteed haddaanay diyaargarowgii la faray aanay samaynin ummad kasta oo muslima oo iyadu isku jeesata oo istunta waxaa abaalmarkeedu yahay caasimadaheeda in gaala ka taliso waana inta maanta dunida ka taagan wallahu aclamu billahi tawfiiq دونت تاريخ الورى بدمائي وحميت أرضي وافتديت سمائي دونت تاريخ الورى بدمائي وحميت أرضي وافتديت